بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa su-aashii saddexaad ee buuggii noo soo socday ahaa 20 su-aalood ay ku weydiin doonaan dadkan muslimka ah. maanta qodobkaan ka hadli doonaa wuxuu noqon doonaa xijaabka. haddaba xijaabka markaan ka hadlayno in rabno gabadha muslimka inaan ku qancino inuu yahay shay fiican oo xumayn, ugu horreyn waxaan la rabaa inaan la hadlo gabadha i daawanaysa sida aan anigu ka aaminsanahay inaan halkan ka sheego. gabadha aan wuxuu sheegaya waxa weeye waa gabadh mar walba u socota raaligelinta ilaahay subxaanahu wa tacaala, rabtana jannaadkiisa iyo barwaaqada iyo in ay ku toosnaato dariiqa toosan. anigu waxaan rajaynayaa gabadha noocaas oo kale la hadlayo islaamka wuxuu hoos ugu dhigay gabadha islaamka oo ugu qariyey maro weyn oo gabadha qarinaysa. haddaba waxaa meesha taalla in gabadha la asturaayay waxay ka dhigan tahay halkooga in gabadhii hoos loo dhigay. haddaba saa qofna ka qarsoonayn waxaa ka socota baraha bulshada in qofkii muslimkaa ragga dumarku ku doona ahaadee loo sheego inuu islaamka dibdhacyo, taana ay beena tahay. gabadhiina gaar ahaan gaar loo weerarayo loo dhaliyo xijaabka iska dhig. labiskii rag iyo dumarba gaar ahaan dumarka ama haweeneyda muslimaddu ay xidhnayd baa odhanayaa dharka aad xidhan tahay waa dib u dhac. haddaba markaan rabno inaan ka jawaabno su-aashan, kuwan kule ee ilbaxnimada sheeganaya iyagu hadda iyo ka hor ilbaxnimadii ay lahaayeen ama ilbaxnimadii ay wax ka soo qaateen haddaan si kale u dhigno ayaan hadli doonaa gabdhaha siday u ahaayeen. markaasaan odhan doonaa gabadha waxay u horseedayaan wanaag iyo khayr ama waxay u horseedeen dhibaato iyo wax xun. marka waa ilbaxnimooyin kala duwanaa waqti ahaan, taariikh ahaan iyo goob ahaanba kuway ku kala duwanaayen, laakiin intoodu waxay isku waafaqeen inay ahaayeen kuwa gaala ah aan muslim ahayn. waxaa ugu horreeyey kuwa baabilyoon ama ilbaxnimadii baabilyoon. ninku haddii uu dilo haweenay dilo waxa la diri jiray xaaskiisa oo isaga ninkii dembiga geystay lama diri jiray. taana waxaad arkaysaa in gabadhii odaygeedu dembigii uu galay iyada lagu oogay. haddaan u imaadno taa aan ka imaadno oon u imanno ilbaxnimadii Griiga, tanna waxay ahayd ilbaxnimadii ugu caansanayd ee xitaa hadda reer Yurubka wax ka soo dheegtaan. haddaad qof wax barata tahay inaad meelaha fara badan waxa lagugu sheego gowra kelmaddaas waxay ka timid kelmad Griiga oo waxaa la yidhaahdaa. haddaba iyagu gabadha waxay u arkeen inayna ahayn qof bini aadama, laakiin bini aadamka ay ka hooseyso bini aadamka u eg tahay, ninkana ay ka hooseyso. gabadhu qiimo agtooda ma lahayn, xitaa markii dambe ay ka dhigeen gabadhii shay la adeegsado oo markaa ay ku badatay gabdhaha jirkoo ka ganacsada halkooga ay ku badatay. haddaan taa ka nimaadno ilbaxnimadii Roomaanka, tani waa ilbaxnimo xoog weyneyd oo dhul in fara badan gaadhay. ninku xaaskiisa ayuu dili karayay isagoo oo dembi loogu oogin, yani gabadhii xaaskiisa ayuu dilay, cidna dembi uma qabanayn oo la iska daynay. iyaga halkooga waxa caan ku ahaa dumarka qaawan oo wax dhibaataa halkooga ma arkayn, waayo sababtoo waxay u arkayeen in gabadhu dadkooda leeyihiin. waxaanu u midnaa ilbaxnimadii masaarida ama Egyptia rasiga u sheegay. haweenaydu waxay ahayd calaamadda shaydaanka iyo dhibaatooyinka. marka uma mayna arkaynba gabadha dhamba, waxay u arkeen inay tahay gabadh calaamadeeda dambe waxay ahayd shar iyo dhibaato. carabtu islaamka ka hor ilbaxnimo ma lahayn, dad la tirsadana ma lahayn, waxay ahayn dad isboobos dhaca. markaa ilbaxnimo iyaga halka ku sheegi mayno. islaamka ka hor ilbaxnimo carabka ma jiro. iyagu gabadha iyada oo nool bay aasiyeen laba mid bay u aasiyeen inay gabadha uga baqayaan
ceeb waxay uga baqayeen in ay waxay siiyaan iyo cunto ay u waayaan. kuwaas waxay ka mid ahaayeen ugu badnaanna waxay ahaayeen ilbaxnimooyinkii reer Yurub gaalada ahaa ayaa iminka ilbaxnimadii markay mar labaad qaateen haddana raba inay gabadhii sidaa ay ahayd usoo ceshaan. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.